السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن صاحبada aan jecelnahay meel walba aad joogtaan iyo si walba ay idin tahay halkani waa Caamir Hable Janaal asxaabta qaaliga ah caawa waxaan ka hadlaynaa ninkii ahaa Mo Fahmy amaba dadweynaha ayaan ka hadlaynaa runtii ninkaasi horta dadka bini'aadamka qofba waxbaa lagu bartaa ninkaasi waxaan baranay isagoo wajigiisa xiran ah barnay badana wajigiisa close ah haddana caadiyan barnaamijyada uu diyaariyo iyo qaabka uu diyaariyo waa qof yacni musaqaf ah yacni qof aqoon-yahan ah diiniyana ku wanaagsan maadiyana ku wanaagsan qofkaas oo kaleeto waxbaa ka rajaynaysaa qofka haddii uu yahayna qof iska caadi ah waxbaad ka rajaynaysaa oo leedahay ninkani waa iska caadi wax walba uu samayn karaa laakiin aniga caadiyan ismaanan lahayn Mo Fahmy ayaa fanka kusoo baxaya amaba fan intuu imaada heesaya faraha noo tagtaagaya dhahaya ismaanan lahayn laakiin haddana waxa waaye dad iyo dunyo waxaa la yiraahdo waxaadan ka filayn ayaa lagala kulmaa Mo Fahmy waad noo dhuumatay inaga waxaan kugu baranay inaad ahayd nin yacni markuu barnaamijyada ka hadlayo inta ugu badan nin diiniyan dhisan fankana waan ka warqabnaa dee fanku caadiyan ma ahan wax wanaagsan ma ahan fanku wax wanaagsan ma ahan marka waxaan kugu baranaa adiga wanaag iyo barnaamijyo qurux badan inaad noo soo jeedisay waxaan isleen maalin maalmaha ka mid ah ayaad arkaysaan Mo Fahmy sanadka cusub ha ahaatee wejigiisa aad arkaysaan isagoo qof iska caadi ah ayaan bisla laakiin aragtida wejigaaga aan aragnaba heesa indhaha naga gelisay horta heestaada way kuu qaraxday sida adiga rabtadna way naqatay oo wejigaaga wuu gadmay laakiin sidaan ka warqabna saaxiib muusiga ama fanku waa dembi wax wanaagsan ma ahan yacni markaan ku dhahayo wanaagaan kaa rajaynaynin anaga mahna fanka ma rajaynaynin laakiin shakhsiyadaada iyo naftaada adiga iska leh waxaad doontana kolley waad samayn kartaa laakiin aniga ilama wanaagsana inaad fanka soo gashid ilama wanaagsana waayo fanka waxaa lagu talagalay qof dib jir ah laguma talagelin dadka aqoonta leh laguma talagelin waxaa lagu tala laakiin xalaal calayk haddana way dhacday oo waad soo heystay niyo mideeda kale wax kale aanba kugu haystaa waxa kale aan kugu haysto waxay tahay barnaamijkaaga ugu dambeeyay waan daawaday waxaad ka hadlaysay Andrew Todd iyo xukuumadda Soomaaliya maxaa iska quseeya mideeda kaleetana waa arkay inta ugu badan barnaamijyadaada niyo xukuumadda Soomaaliya daba dhigatay waad ku jaftaa ma arkin hal muuqaal oo aad ka soo samaysay amaba aad uga hadlaysid maxaan iraahdaa Somaliland marka maxay tahay niyow sheekadani maxay tahay saaxiibow Somaliland kama hadashid haddana xukuumadda Soomaaliya barnaamij walba aad soo qaadanaysid waad ku soo qaadataa madaxweynaha hadda joog inaad la dhacsanin kasoo xirwa ma kaa dareemayay laakiin waxyaabaha qaarkood niyow ku cusub tahay janalka Mo Fahmy ba ahaatay saaxiib subscribe saar gambareelkana furo janalkana waa janalkaaga saaxiib caadi iska dhig ma fahantay intaasna kaftan ha noo ahaato marka saaxiib enjoy noloshaada adiga iska leh you can do whatever you want ma fahantay laakiin meel walba joogto ilaahay ka cabso habeen wanaagsan cheerio السلام عليكم cusub tahay janalka Mo Fahmy ba ahaatay saaxiib subscribe saar gambareelkana furo janalkana waa janalkaaga saaxiib caadi iska dhig ma fahantay intaasna kaftan ha noo ahaato marka saaxiib enjoy noloshaada adiga iska leh you can do whatever you want ma fahantay laakiin meel walba joogto ilaahay ka cabso habeen wanaagsan cheerio السلام عليكم marka Mo Fahmy saaxiib wejigaaga xir saaxiib wejigaaga xir sheekada hadda soo bilow ka soo dhig
heesaa noogu soo bixi saaxiib waxaas waa tama soconayso. Marka waxaad samaysaa wejigaaga dib u xir, gadaal noo celi 360 degree inaad gadaal u wareegatid waay. intaasna waa iska kaftan caawa. caawa waxaan u maleynayaa inay tahay habeenkii ugu horreeyay ee 2022 laakiin maysan naqanin waayo waqtiga way ku dhacday 2023 ilaahay insha Allah anaga dhigo sanad barwaaqaysan iyo waliba sanad guuleed. ilaahayna xumaanta anaga qabto. intii walaalaha ana ilaahay ha soo hanuuniyo marka